markaasaa Israa'iil la guuray wixii uu haystay oo dhan oo wuxuu yimid Beersheba oo halkaasuu Ilaaha aabihiis Isxaaq alla baryo ugu bixiyey markaasaa Ilaah riyooyinka habeenka kula hadlay Israa'iil oo wuxuu ku yidhi Yacquubow ina isna wuxuu yidhi waa ikan markaasuu ku yidhi anigu waxaan ahay Ilaaha aabbaha ha ka baqin inaad Masar ku dhaadhacdo waayo anigu halkaas baan kaaga dhigi doonaa quruun weyn anigu Masar baan ku raaci doonaa oo hubaal haddana waan kaa soo bixin doonaa yuusufna gacantiisu saari doonaa indhahaaga markaasaa Yacquub ka tegey Beersheba wiilashii Israa'iilna waxay aabbahood Yacquub iyo dhallaankoodii iyo dumarkoodiiba ku qaadeen gaari fardoodkii Fircoon u soo diray in isaga lagu soo qaado oo waxay kaxaysteen xoolahoodii iyo alaabtoodii ay ka heleen dalkii Kancaan oo waxayna yimaadeen Masar Yacquub iyo farcankiisii la socday oo dhammuba kuwaas oo ahaa wiilashiisii iyo wiilashiisii wiilashoodii isaga la socday iyo gabdhihiisii iyo wiilashiisii gabdhahoodii farcankiisii oo dhanna wuxuu keenay Masar kuwaanu waa magacyadii reer banu Israa'iil oo Masar yimid Yacquub iyo wiilashiisii Ruben wuxuu ahaa curadkii Yacquub wiilashii Rubenna waxay ahaayeen Xanoog iyo Faalu iyo Xasroon iyo Karmi wiilashii Simecoonna waxay ahaayeen Yamuu'eel iyo Yaamiin iyo Ohad iyo Yaakiin iyo Sora iyo Shaa'ul oo ay naag reer Kancaan ahi dhashay wiilashii Laawina waxay ahaayeen Gershoon iyo Qohaad iyo Merari wiilashii Yuhuudana waxay ahaayeen Cayr iyo Oonaan iyo Sheelaah iyo Faras iyo Serax laakiinse Cayr iyo Oonaanna waxay ku dhinteen dalkii Kancaan wiilashii Farasna waxay ahaayeen Xarsoon iyo Xamuul wiilashii Isaakaarna waxay ahaayeen Tola iyo Fuwaah iyo Yoob iyo Shimroon wiilashii Sebulana waxay ahaayeen Serad iyo Eelon iyo Yaxle'eel intaasu waa wiilashii Leah oo ay Yacquub ugu dhashay Fadan Aram iyo weliba gabdhihiisii Dinah ahayd Yacquub wiilashiisa iyo gabdhihiisa oo dhammu waxay ahaayeen 30 wiilashii Gaadna waxay ahaayeen Sifiyoon iyo Xagi iyo Shuni iyo Isboon iyo Ceeri iyo Aroodi iyo Areeli wiilashii Asharna waxay ahaayeen Yimnah iyo Yishwah iyo Yishwi iyo Bariicah iyo walaashood Serax wiilashii Bariicahna waxay ahaayeen Habar iyo Malki'eel kuwanu waa wiilashii Silfa tii uu Laabaan siiyey gabadhiisii Leah oo intaasay Yacquub u dhashay waxayna ahaayeen 16 naagtii Yacquub oo Raaxaal ahayd wiilasheedii waxay ahaayeen Yuusuf iyo Benyamiin Yuusufna dalka Masar waxaa ugu dhashay Manasseh iyo Efraim oo waxaa u dhashay Asenad ina Pootifera oo wadaadkii oon ahaa wiilashii Benyamiinna waxay ahaayeen Balac iyo Bakar iyo Ashbeel iyo Geera iyo Nacmaan iyo Exi iyo Rosh iyo Mufim iyo Hufim iyo Ared kuwanu waa wiilashii Raaxaal u dhashay Yacquub kulligoodna waxay ahaayeen 14 wiilashii Daana waxay ahaayeen Xushim wiilashii Naftaalina waxay ahaayeen Yaxsa'eel iyo Guuni iyo Yasar iyo Shilaam kuwanuna waa wiilashii Bilha tii uu Laabaan siiyey gabadhiisii Raaxaal oo intaasay Yacquub u dhashay kulligoodna waxay ahaayeen 7 intii Yacquub Masar la timid oo xanjaadkiisa ka soo baxday haddaan lagu darin wiilashii Yacquub naagahooda kulligood waxay ahaayeen 66 wiilashii Yuusuf Masar ugu dhashayna waxay ahaayeen 2 reerkii Yacquub
dadkiisii Masar yimid oo dhammu waxay ahaayeen 70 markaasuu wuxuu iska hormariyay Yahuuda inuu Yuusuf u tago si uu u tuso jidka loo maro Gooshen oo waxay yimaadeen dalkii Gooshen Yuusufna wuxuu diyaarsaday gaari faraskiisii oo aabihiis Israa'iil ayuu kaga hortagay Gooshen oo markuu isagii arkay ayuu qoortiisii dabiri qoortiisana wuxuu ku dul ooyay waqti dheer Israa'iilna wuxuu Yuusuf ku yidhi haddaba aan iska dhinto mar haddaan arkay wejigaaga oo aad weli nooshahay Yuusufna wuxuu walaalihiis iyo reerkii aabihiis ku yidhi waan tegi oo Fircoon baan u sheegi oo waxaan ku odhan walaalahay iyo reerkii aabbahay oo joogi jiray dalka Kancaan ayaa ii yimid nimankaasuna waa arjiro waayo waxay ahaan jireen lo'ley waxayna la yimaadeen arigoodii iyo lo'doodii iyo waxay haysteen oo dhan markii Fircoon idin yeedho oo idinku yidhaahdo shuqulkiinnu waa maxay waxaad ku tidhaahdaan annagoo addoommadaada ah waxaannu tan iyo yaraantayadii ahaan jirnay lo'ley annaga iyo awowyaashayaba si aad u degtaan dalka Gooshen waayo arijir waliba waa u karaahiyo Masriyiinta